Nolosha ayaa waxay u samaysan tahay qofka inuu marna baraaro iyo wanaag ku jiro, marna dhibaato iyo culays ay soo marto. Adduunkana wuxuu u samaysan yahay labadaas, macnaha inay qof meelaha qaybtood ay ka jirto colaado iyo dhib iyo culays iyo abaaro iyo waxa uu qofka dhibaateeya. Dhinaca kalena waxaa jirta inuu marna baraaro iyo wanaag uu ku jiro. Marka dadka qaybtooda waxaa soo gaarta xilliyada ay dhibaatada ay jirto oo kale. Matalan markii colaadaha ay jiraan oo qofka uu xaalad colaadaha uu ku jiro, maskaxdiisa marka qaybtooda inaysan u dulqaadan karin, taasoo ku sababi karta inuu aad u fikiro hadhowdina si taban ay maskaxdiisa dhaawac u gaarsiiso. Waxaa jira xanuun la yiraahdo post traumatic stress disorder luqadda Ingiriiska lagu yiraahdo, oo ah inuu qofkii markuu ka baxay xaaladda ay soo muuqatay calaamado maskaxdiisa muujinaysa inay dhaawac gaarsiisay. Waa xanuun nafsi ah oo qofku uu sidaa ugu fikirayo dhibaatada marka soo gaartay maskaxdiisana laga arkayo calaamadahaas. Calaamadahaas waxaa ka mid ah marka inuu qofka si khaldan mar walba u fikiro, inuu xasuusto mashaakishii iyo dhibaatooyinkii uu soo maray mar walba oo ay maskaxdiisa aysan ka bixin oo ay kusoo noqnoqoto, taasoo iyadana sii dhaawacaysa hadhowdina keeni karta xanuuno kasii siyaadsan oo nafsi ah, kuna keeni karta inuu qofkii depression galo ama ay xaaladda sii fogaato schizophrenia iyo qofka inuu xaalad nafsi ah oo waalida u dhawaada ay tahay. Xanuunkan marka waa xanuun nafsi ah oo qofka inta badanna lagu arko dadka mashaakisha soo mara ama culeysyada maskaxiyan aad u fikiray ama culays aysan qaadi karin oo si matalan sadma ah ugu dhacay ay ku keeni karto. Waxaa marka calaamadaha ka mid ah sidoo kale inuu qofka si khaldan mar walba u fikiro oo si taban u fikiro fikirkiisa, habdhaqankiisa oo kalena ama misaajkiisa aysan mar walba khaldan tahay oo macnaha aysan saxnayn oo si negative ah taban u fikiraya marka loo eego markii hore oo xaaladiisu caadi ahayd. Waxaa calaamadaha ka mid ah marka sida uu matalan u falcelinayo kale waa waxaa ku jira mar walba si taban ayaa ku jirta oo si lagu bartay qofkan oo lagu yaqaanay ma aha. Waxaa kaloo iyadana ka mid ah inuu dadka ka dhex baxo oo macnaha si caadifi ah oo u noqdo qof macnaha dadka ka dhex baxay oo mar walba gala xaalad maskaxiyan oo uu fikir badan galo, kadibna qofka keento diiqad, qalqal iyo inuu marka dambe dadkii ehelkiisa ama u dhowaa inuu kasii fogaanayo mar walba xaaladaas lagu arko. Xaaladdan marka waa xaalad aad keeni karta qofka hadduu kusii fogaado inuu xaalad maskaxiyan ah oo waalida nooc ka mid ah uu usii dhowaado. Waxaa loo baahan yahay marka in la dabiibo oo la daweeyo. Hababka lagu daweynayo waxaa ugu muhiimsan in qofka loola dhaqmo oo hab nafsi ah loo daweeyo. Marka ugu horeysa habka nafsiga loo daweynayo waa in lala tacaatufo oo la aqbalo inuu qofkan xaalad kala galay oo uusan ahayn qofkii hore loo yaqaanay. Marka qaybtood waxaa dhici karta qofka inay dhaawac u sii geysato habdhaqan dadka ka soo baxaya oo markaas aysan ogeyn ama dareen aysan u lahayn qofkan inuu qofkii hore uusan ahayn. Markaasoo kale waxaa loo baahan yahay in la aqbalo qofkan inuu xaalad kale ku jiro. Loo baahan yahay marka in lala tacaatufo, loo dhimriyo, la siiyo fursad inuu qofkan xaaladdan si uga bixi lahaa. Taas marka waa dadka u dhow, ehelada, asxaabta ayaa aad looga baahan yahay. Qodobka labaad oo isagana muhiimka waxaa weeye in dhakhtar cilmi nafsi ah lala xiriirsiiyo qofka oo dawooyin nafsi ah oo nafsadiisa dejinaya, waxaan khalkhalka maskaxda ka jirana ka dejinaya ayaa looga baahan yahay xilligan. Haddii kale marka qofkan dhibaatooyin kale ayuu keensanayaa, wuxuu keenayaa waxaas inay kusii aruuraan, inuu dadkii cuqdad kasii qaado, inay dhibaatadii kusii fogaato. Markay dhibaatada kusii fogaatana xilli aan waxba laga qaban karin inay xaaladdu gaarto. Xanuunada nafsiga waxay ka dhib badan yihiin xanuunada jirka. Daweyntooda, fahamkooda
iyo cilaajintoodaba intaba way ka dhib badan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay inta waxa mar walba ay cusub yihiin in mar walba la ogaado oo lala falgalo. Intaas ayaan rabay inaan fariinteyda kusoo kooba. Waana salaamantihiin. Daryeel Medical Consultancy oo ku haysta talo bixin caafimaad oo bilaash ah waqti kooban kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda. Asalaamu calaykum.